magaalada Buuhoodle waxaa maanta lagu soo dhaweeyay wafti balaaran oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay. waftigan waxaa ka mid ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. dowladka bariga Buuhoodle waxaa ku soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada Buuhoodle waxaana halka madaxweyne ku-xigeenku ciidamadii ka qaatay salaan sharaf. madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa inta kadib waxaa loo soo galbiyay dowladka isla magaalada Buuhoodle waxaana uu sidoo kale halka kula kulmay odayaasha dhaqanka ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle. waftiga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland hogaaminaya Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay ayaa loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle waxaana inta badan lagu soo wareejiyay wadooyinka soo gala gobolka. waxaa markii dambe madaxweyne ku-xigeenka dadweynaha kala hadlay garoonka weyn ee kubadda cagta xabada stadium football ku yaala Buuhoodle. waxaana halkan ugu horeyn ka hadlay maamulka gobolka Cayn kan degmada iyo mas'uuliyiin kale iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha caqaasha Buuhoodle gabahan soo dhaweeyay waftiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdilaahi Xaaji Cumar Camay. kala horeyn halkan isugu nimi 24 saacadood soo dhaafnay waxaa joogtay gobolka Cayn xilligii hore aad noo timay meydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro abaarina jirto maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqa waxaynu ku jirnaa maalin rabadaana halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa wasiiro xildhibaano madaxweynaha dowladda Puntland marka dadweynaha waka odayaal waliba garaadada waxaan leenahay waad aragtaa shacabkaagii halkuu taagaya waad aragtaa waxaanu diyaar u nahay wax allaale mudane madaxweyne waxaad u baahantahay baanu diyaar u nahay haddaad xoolo dowlas diyaar baanu u nahay haddaad xuduud doonaysa diyaar baanu u nahay haddaad tignika doonaysa diyaar baanu u nahay waxaanu diyaar u nahay nimankii annagu aanu isnaqan inaanu annagu labanagdaysano annagu aanu haddii ay badankeeda ay qori turan aanu doonayna insha allah haddaa la ka dhigo Buuhoodle hadduu dagaalka galana wallaahi waxaa looba ilaah baa loobaye inay yaacayaan rag baa gabayga leeleeliya allahan ka idlayn laqwi ma aha ee kaygu waa ligiya miisaan laqbadiya araartaydu waa labankii hoobaane laqbadiya araartaydu waa labankii hoobaane teer iyo liqaagii haye waa lay marti ahaaye aan loo yar daacad u dhashay iyo liidar ba ahaaye raggii maanse leydhka u shiday bal looxa ii dhigaye waxaan ahay lodkii aadan carab liisanka u jareen waxaan ahay lodkii aadan carab liisanka u jaraye maantana waxaan loogayaa kaad u lahateen liggaxan ka furayaa muddu laabta yururee ninkii hadalka liishada rabow la qabso weedhayd miciyaa libaax durrin galay wuu lisanayaa isagaba ninkii lurigu tagay wuu la go'ayaa daraawiishi lowgay dhigtaa loolan diriireede ama cadowga loogay fardaha leedda ku eriyaane luwaa janana laydhoon askari laban legdoonaya inta layli jabisaa ka badan lagiya aalaafe waxba iyo hartiga liigayaa igu lamaanaane ama libintay daarood isiin laabkaciyo hiide layaab ma laha ii doorkan ligan loodi keligaay aniga iyo luduucahaysa walagdamaynaayo tiishaanka iyagu waa midaan leexasha aqoone waxa liifka iyagu saaran yahay labta unnade laagaha qoryaale iyo markaan labida weydaarsho laagaha qoryaale iyo markaan labida weydaarsho laamiga hargeysiya berbere liiqu ha u dubee loor fadhantigii daba socday iyo laaran iyo koofil waa taanu laalaabi jiray tan iyo laalayse lidig iyo colaadaydii baa loogu dabgalay intay aniga igu loohan yihiin lumiyatoodii intay aniga igu loohan yihiin lumiyatoodii nilla kuma lifaaqni ee ana lay harsan waxaad ka rabtaynaa insha allah biidnillah karim iyagaa u diyaaran waxaan kaloo ilaahay ugu shukri naqaya oo ku shukri naqayaa maanta ummadda aad dhex taagantay haddii ay isku niyad tahay oo waxaad doonaysa ay doonayaan baan ilaahay ugu shukri naqaya wadninka meelaanu lahayn dadka islaamka in la nabadgeliyo waa ilaahay baa faray dadka wuxuu hayay dadka isnabadgeliyo wuxuu ka dambaysiiyey oo xijiyey ninka ku nabadgelin waaya in haddii aadan ka hortagin oo iska qabano maatadaada iyo carruurtaada ka difaacin qiyaamaha waa lagu weydiinaya waa mid furan marka hore waxaan leeyahay war naga noqda war waa bil rabadaan
ورنكو حدونا يا مانا الله وادراتكم ووحو وحكم تمام معها تدكا بوري دلكم مبوري ورنقا النقرة حتى نقوى إذا وحي إلهي دي فريالة انت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سلام مبارك كاركيسان مدحوينه وحيينك بلدان وابريا يمين maanta waxaan dhabaarka ka dalaynaa waa buuhooda wey waa shaxdi walaalahayna laascaanood dhambaalkiisa waana soo gaadhay waadnana arkaysaa haddii ilaahay nafta noo daayo bishaa rabadaan gudaheeda haddii ilaahay nafta noo daayo waadna arkaysaa madaxweyne waxaan leenahay shaki baanu qabnay markii hore shakiga aanu qabnay wuxuu ahaa buntland inaanay dagaalamaynin baanu shaki ka qabnay shakigii waa naga baxay oo inay dhirbaaxa kululgaysatay baanu aragnaa annaga waadna garanaysaan reer buuhoodle ama gobolka cayn baanu nahay taaka kama joogaan jabhadda soomaali diidka iyo deegaankayagii gobollada sooltale gobolladii kale ee lixda ah ee puntland ee dastuuriga ahana waa u gurmanaynaa diyaar baanu u nahay waa isgarab taagaynaa haddee waad garanaysaan meeshii aanu kaalintaanu qaadanayna doorkayaga aad baad u garanaysaan laakiin waad aragtaan xaajo waxa rag ka damcay waddanka waxa ragini ka damcay waxa rag waddankan ka damcay waxa dadka magaciina sheegtay iyo waddankii intii ay ilaahay idin dejay ee idin ku beeray ee aad 20 awoodda gabayneen waxa rag ka damcay waad ogtahay ka dulqaadan mayno waabhino aan halkan ka cadaynaynaa oo mar walba aanu ka caddayn jirnay oo haddana aanu ka caddaynaynaa maamulka somalilan in aanan wax xidhiidha iyo wax wacdiya iyo wax dowladnimo ah iyo wax naga dhexeeya ayay jirin aan islaamnimo iyo derisnimo aan ahayn waad ka waraysaan isimadaa qaybsan baa la odhan jiray labadii ugu dambeeyey laba garaa jaamac 24 saacadood ugu dambeeyey hadleen hadalkoodu waa la hayaa hanaga bixin bay yidhaahdeen intii kalena horey u hadashay wax allaale wixii looga baahdo ee soomaali diidka lagaga hortagayna diyaar baanu u nahay waanu soo dhawaynaynaa aad baanu u soo dhawaynaynaa 100% haddii aanu nahay gobolka cayn ama deegaamada halkan degan dhammaantood waxa aanu leenahay sii wada waa idinku berber taagannahay ka ciidan ahaan iyo ka calaf ahaanba waa idin berber taagannahay ilaahay waxaan barya ninka maanta ee maanta dhibaataysada ee lacag ka qaata dhulka halagow wardaarood ba isma soo gaaraan isaga wuxuu naga diladaay waxar nagama dilin war annagu kuwaanu isgaadnay isdillo waana isdillaa waana ka heshiinaa waa nimankaa galxajis iyo habar jeclo waana isnaqaanaa jaarna waana isdillaa markaanu doonno waana ka heshiinaa laakiin habka uu hadlayo nin coraad horay u galayba ma aha ninkaan sheegayaa runtii waxaan idin leeyahay waxay doontaba ha ahaato hadalladiisii waxaan qirayaa dawlad kaamila in looga tegay isaga waxaana yidhi ciro cabdiraxmaan ciraa yidhi maantana isagoo 6 bilood joogay 6 bilood isagoo joogay yuu waxna sheegaan halkaa ula baxa dadka ummaddii kalena uu cagta mariyey noocay doonaanba ha yeelin ilaa heer buu maraya dumaryowgii inuu xidho oo laayo waxaa yagoori ilaa iyo guumaysi iyo og war waxaynu uga kala duwan yihiin ma jirto hadday halkaa fadhiya ama dib loo soo kiciyo oo la yidhaha gambadhaa la keenaya wax u dhaxeeya haba yadhaatee ma jirto mana qaadan doonno mana qaadanayno wixii saa ku sheekeeyeyna been ka soo qaada waa been oo run ah waxaa weeye heer bay taagan tahay maalin dhaweyta waxaan waa naflcaarig waa hubaal weeye inuu naflcaarig yahay qofkii hadle ee wanaag ka hadla ee dadnimo ku hadla ee islaamnimo u hadla jeelkaa la geynaya loo nixi maayo rag iyo dumar iyo ciyaal carruur nooc walba waa la xidhaya
waxaa la ii sheegayo maanta la ii sheegayay 150 bay marayaan xarigga iyo sii dayntii waa nin dalka ka baxaya askartiisiba waxay samaysay inay iibsato konton baa lagu bilaabay xalayna 150 ma marayaan qofkii lagu sii daayo war ma sida xoolaha la idiin gadanaya inuu ogolaana waxa weeye saxaafadda tiifiyadii ka hadlayay kullu waa la wada xidha dimuqraadi baanu nahay iyo sidan baanu nahay iyo aleelaya taasaa beena waa wada xidhay war waxaan idiin sheegayaa kulligeen innagoo mida rag iyo dumar qof waliba mas-uuliyadda barta uu leeyahay ka qaato puntland waxay ballan qaadaysaa anoo madaxweyne ku-xigeenkii puntland inta la xoraynaya dalka dagaalkaasi inaanu istaagin baan ballan qaadaynaa horena waa noo aragto si kastaba ha ahaatee madaxweyne cami ayaa ku dhawaaqay inaanu joogsanaynin dagaalka somalilan waxaana uu sheegay in dagaalkaasi uu joogsanayo oo keliya marka ciidamada somalilan ay tagaan deegaanka labada gaatama oo ka tirsan gobolka togdheer axmed maxamed nadiif kalson t v buuhoodle